waxa ka hadlaynaa qaybta tamarka waxa jira maanta dunida aad joogno waxa jira hoggaanku waa maxay marka waxa maqasho hoggaamiye waxa jira hoggaamiye iyo la hoggaamiyeyaal lacagaha suuqa kana waa tabtaas oo kale waa maxay waa lacago la hoggaaminayo iyo lacago wax hoggaaminaya tusaale oo kale hadda halka waxa uga jeedaan AUD qaybta tan waa maxay marka lacagta u horeysa ee hoggaanka ah way lacagaha kan waa lacagaha hoggaanka ah okay maxaa weeye waa lacagaha hoggaanka ah marka waxaan fiirinaynaa qaybta markaad fiirisid hoggaanka ah hadda tusaale kale AUD waa maxay waa hoggaankii okay AUD waxa weeye waa hoggaanka tusaale kale maadaama ay tahay hoggaanka waxa tagaysaa qaybta tan waa tusaale okay guys tusaalaha idin soo qaaday dhageysta kadib maxaa dhacay AUD waxay tagtay halkan waxay hoggaaminaysaa USD markaad fiirisaa halkan waxay hoggaaminaysaa USD bay hoggaaminaysaa waatan haddaad u tagtid waxay hoggaaminaysaa USD bay hoggaaminaysaa maxay isku noqotay markii la isku qabtay AUD USD kee horeysa lacagta tan sababtan bay halkan u taallaa oo micnaheedu waa maxay waa bayris oo bayrisku waa maxay horta waa marka tanna waa keli laakiin markay labadood israacaan maxaa la dhahaa currency bayris bay noqonayaan marka ay laba lacagood israacdo currency bayrisku marka israacaan laba lacagood marka israacaan AUD kaligeed baahay marka AUD iyo USD baa marka waxa weeye israacay oo la isku sarifaya oo waa maxay bayriska hadaan idin micneeyo hadaa maqashid waxa weeye bayriska waxa weeye waa wax laba lamaane laba kabood waad aragtay labadaada lugood laba kabood laba dhagood laba indho waa maxay wax walba oo lamaana yani waa maxay baa la dhahaa bayris marka bayrisku waa maxay labadan lacagood marka language-ka waa inaad fahmi kartid oo labadan lacagood marka la isku qabto okay waxaan dhahaynaa AUD waa misna sii wadana tusaale kale NCD waa tan NCD iyo AUD marka la isku qabto maxay noqonayaan AUD NCD waxay noqonayaan two pairs oo isku tagay maxay noqonayaan one pair bay isku noqonayaan oo waa hal kabaha gutay waa pair hal wax bay isku noqonayaan oo waxa weeye laba lacagood isku tagay oo markaas waxa weeye qaybta tan waa maxay hoggaamiyaashii tay hoggaaminaysa AUD NCD baa dambaysa okay haddaad sii fiirisid marka kaad oo kale waa kan kaad yay hoggaaminaysaa JPY bay hoggaaminaysaa oo maxay noqotay kaad JPY bay noqotay AUD waa tan maxay noqotay AUD JPY bay noqotay sidaasay ku soconaysaa bla 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 okay waxaan marka inaan idin tuso muhiimadda ay leedahay aad si guud u fahmaysid teeba hoggaaminaysa lacagu goorma hoggaaminaya maxay ku kasbatay inay hoggaamiso waxaasoo dhanna haddaan idin tusayaa ha sugi waayin insha Allah okay qaybta tan imaanayna suuq waxna saddex dagaal baa ka socda suuq waxa ka socda dagaal u dhaxeeya selleriska iyo buyerska waa labada dagaal wuxuu u dhaxeeya selleriska iyo buyerska labadooda anagu midna lama jirno ee waxa la jirnaa midka awoodda leh keeba marka awoodda hoggaaminaya haddii waxa weeye sellerisku awoodoodu waxa weeye iyagu bataan awooddu la wareegaan iyaga raacayna selba suuq u galayna haddii buyersku la wareegaana maxaa u raacaynaa buyerska awoodda leh hadday labadoodu isla yihiinna midna raaci mayno ee danteena qabsanaynaa oo suuqa waa ka joogsanaynaa waa ka taxadaraynaa tusaale halka waxa uga jeedaan marka waa maxay suuqu waa mar labadan awoodood isla yihiin oo marxalad wuxuu ku jiraa suuqu degan oo ay labadiiba isla eg yihiin aysan midna mid ka awood weynayn oo micnaheedu waa maxay marakan oo kale suuqa cidna cid kama awood badna selleriski iyo buyerski waa isku awood marka ma gelayno markaas oo kale suuqu waa marka uu aad maqashay uu suuqu ku jiro jahwareerka okay marka aan tegayna marka tan waa maxay micnaheedu marka waxa way suuqu wuxuu ku jiraa waa marxaladda wuxuu ku jiraa buy oo micnaheedu waa maxay sababtu buy ugu jira waa maxay maxaa kuu sheegay sababtoo ah lacagtan waa strong yani qaybtata waa strong oo waa maxay markaana wuxuu ku jiraa suuqu awooddu waxa haysta hal dhinac baa haystoo la jirta oo dhinac baa yar dhinaca hore hadduu awoodii weyn yahay micnaheedu waa maxay suuqani waa strong oo waa buy lacagaha waxa weeye strongkiga dhan kadibna tan hadday dambayso lacagta weekana micnaheedu waxa weeye in ay lacagtan daciif tahay awoodeeda hooseyso okay markan maxaa u jeedaa iyada bilcagsiya waa tan markan ay lacagtii strongkiga ahayd ay dambayso mar walba lacagtii strongkiga ay dambayso suuqu waxa weeye waa sell
mar walba oo lacagta strongkiga ay horeysana suuqu waa buy formuladaas oo waxa weeye faseexa oo fahmaysaan oo lacag ay ku tusayana waan idin tusaya insha Allah okay marka ta ka gudubno marka waxa u gudagalaynaa qaybta tan qaybtan maxay ku tusaysaa qaybta waxay ku tusaysaa waxa weeye يعني تصالح كسينيسا واكن سوق وامحي ومركه وياهي سترونج بكو كسينيسا تصالح داي ومركه وياهي سترونج دي هذا او ان لعق دبخي دي هره بلا لعق ما هي اوكي هذا waxa way bila lacag bay ahayd laakiin hadda waa tan iyada lacag ku dabakhay okay maxay ku tusinaysaa tan marka hada tan waxay ku tusinaysaa strong bay ku tusinaysaa USD oo tusaale soo qaadanay USD ba hadda strong kiya lacagta tan maxaa marka ay USD strong ka tahay macnaheedu waxa way suuqu waa buy sababtoo ah waa strong lacagta awood leh waa USD macnaheedu waxa lacag walba oo USD marka ugu horeyso awood bay leedahay oo waxa u galaysaa buy lacag USD ugu horeyso ha u galaysaa hadaa u gashisal wax faa'iido ka helaysa ma jirtaa khasaar ahay kad lacagta u dambayso maxaa weeye waa tan sababtoo ah kad baa awoodeedii baa daciifa macnaheedu waxa weeye suuqan buy baa u galaysaa hadaa USD horeyso kaba soo qaad kad baan soo hormarino dhinacan keena USD baa dhinacan keena macnaheedu suuq marka maxaa ku galaysaa sel baa ku galaysaa sababtoo ah lacagtii awoodda yarayd baa soo hormartay tii awoodda weynayd baa dib martay okay waxa guda galaynaa tan marka hadda yuuradii oo awood yar tusaale kale yuuradii awood yar baa dhinaca martay USD awood leh baa dhinaca martay macnaheedu suuq wuxuu aadayaa sel baybu sel u aadayaa sababtu sel u aadaya waxa weeye lacagtii awoodda weynayd baa dhinaca martay tii awoodda yarayd baa dhinaca soo martay mar walba tan awooddeedu xogaaminayso macnaheedu waxa weeye suuq wuxuu aadayaa sal oo tan awoodda weyn dhinaca kale xigto waa inta hadaa fahantid sirtan xogaa waa wax badan baa ka fahmaysaa hadhowna waxa noqonaysaa qof waxa weeye suuqan khasaaradiisu ay yaraato oo faa'iido badan ka sameeyo okay waxa guda galaynaa marka qaybta tan guda galaynaa qaybta tan waa maxay marka qaybta tan iyaduna tusaale kale weeye oo cajiiba marka waxa markii ay tusaynay USD awood hadda waxaan tusaynaa USD oo bila awood ah oo aanan wax awood lahayn okay USD oo wax awood lahayn halka hadaa fiirisid waxa arkaysaa USD inay bila awood tahay halka maxay ku lahayd awood bay ku lahayd mar walba marka USD awoodeedii raato macnaheedu waa maxay suuq waxa uu aadayaa haddii awoodeedu ay yani iyadu ay dambayso oo lacagta awd ba hadda awood leh maadaama awd awood leedahay suuqan wuxuu aadayaa buy sababtoo ah waxay awoodeedii buyer USD fiiri marka awoodeedu weynayd buy buu aadaya suuqa laakiin marka awoodeedu yar tahay USD suuqii wuxuu aadayaa waxa weeye markii iyadu dambayso wuxuu aadayaa suuqii wuxuu aadayaa buy buu aadaya marka iyadu horeyso oo awoodeedu tay halakan tusaale USD baa horeysay buy buu aadaya suuq why sababtoo ah awoodeeda weyn fiir marka USD weeye awoodeedii baa yar suuq muxuu aadayaa sel buu aadayaa sababtoo ah awoodeedii baa yar waxa weeye laakiin JPY baa ka awood weyn oo lacagta awood lahayd dhinaca xigta miisaanka leeyahay haysta kadib la soo xiriiraya